magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland waxa ka jirta hadalhaynta aroos la sheegay in gabadha uu minxiis u ahaa nin ku labisan dharka ay haween ku xidhaan arintan ayaa waxa loo gudbiyay maxkamadaha kuwaas oo ilaa hadda ka qarnaqaya isla markaana aan ka soo saarin jawaab cad. Cabdiraxmaan Ismaaciil Cumar waa ninka arooska ahaa waxaana warbaahinta markii ugu horeysay uga waramay dhacdadaasi. markii la soo weegay guriga la soo weegay reerka la soo wareegay ayay soo raacday intaas gabadhaas markii hore la socon jirtay markii inta la socon jirtay ana iskuulsana la socon jirtay ayaa markii dambe soo raacday kadib 20 cisho ee guriga uga noolad kadib dabeetana iyadoo gabadh ay uga noolad guriga iyo xaafadda ku nool markasta way naqaameen ma naqaameen naqaabku markii meelaha u baxay xidhan jirtay laakiin waxay xidhan jirtay dharkii dumarka iyo labisii shisheeye roob burusha in qalin sunne in labisii dibna wax walba marsan jirtay wixii dumarka marsan oo marsan jirtay dabeetana ma na dareemin xaafadii ma dareemin marka gabadhan iyada isku wadatay marka hore magaranaysa oo guriga ku wada noolayeen bal sayimka markii dambe la xaqiijinayo guriga ku wada noolayeen oo ay u shaqeyn jirtay gabadhan xaafadan inanka yar u shaqeyn jirtay dabeetana sidaasay guriga ku yimaadeen marka kadibna 20 cisho markay guriga noolayd ay galabtii dambe iga tagtay markay iga tagtay dabeeto hooyadii oo doonaysa ayaa timi gurigii markay timi ay xaafadii weydiisay amanay ma inankii Cabdiraxmaan kula joogay marka xaafadii maqlaysay ma tidii Cabdiraxmaan lamu joogin waxa la joogtay inan la yiraahdo asma dabeeto saasay ku fashilantay arintii iyaga fashiliyay markii dambe anagu waxma ogaanin marka maxkamadda waxaan saldhiga iftimaan ku soo xidhnay inankii iyo gabadhiiba baa doonteen markii saa ay hooyadii tiri ma ahayn gabadha inankaygi baa habay tiri markii ay caynka tiri gabadhii iyo gabar kale walaaliyiin oo guriga tilaga soo wareejiyay ayaan xidhnay oo guriga intaan ugu yeedhay guriga keenay ayaan ku arrintaas dhacday dabeetana arrinta ka warrama waan waxay arrintaas u jirtaayo ninkaas waa waxaan inaan muhayn marka xaafadii baa ku kacday oo tiri maxaa dal orin noogu qarinaysan ayaa habliye la saxan jirtay ayaa xanaaqay oo meeshii shiiday maxaa dal ugu qarinay isla mar saasan ku xidhnay saldhiga ku geeyay markaan saldhiga geeyay labadoodii walaal ahaa ayaan ninkiina keena markaan wixii iyaga keeno markii dambe naloo keenay isagoo nina Cabdiraxmaan oo ay warbaahintu wax ka weydiisay sababta uu uga waayay ninka gurigiisa kula noolaa isla markaana muddada dheer minxiiska u ahaa afadiisa ayaa ku jawaabay shakiniga ma gelin shakiniga macal xaafadda dawi dareemay wax dareemay waxaan waa nin damana aniga la cadeeyay reerkoodu bacdi fashiliyay anagu ma dareemin waxa ma dareemin inanu banaysan waxa kale uu xusay in ka hor haasawaha guurka gabadhiisa in ay sheeko wadaag lahaayeen ninkan dharka dumarka ku labisan ee gurigiisa kula noolaa internet guurtan ka hor marka ruuxan la sheekan jiray inakan qofkan kan isbedelay ay marka hore la sheekan jiray marka wuxuu diyaar ma yahay in noo shaqeysa ayaan baraya marka saadirtii inuu bareekan markii uu barayna inantan walaalayiin baa ila soo hadashay telefoon miisan iyadu marka waxay tiri inaga Cabdiraxmaan ma adiga ayo masla ku lahaa laakiin inanta ma sheekaysan waxa inantii naga la tagay baa leeyahay noo kaarayo de waxa la tagay Cabdiraxmaan oo inanta kaarey ka xis oo caadi u soo fadhiisay si caadi geesta kale Safiya Xasan Cumar waa haweeney ay muddo 20 cisho ahayd isyaqaaneen ninkan ku labisan dharka dumarka hase yeeshee u haysteen in uu yahay qof dumar ah waxaana ka sheekaysay bal waxyaabihii ay ka arki jirtay iyo waliba qisooyinkii ay wadaageen daahidna anagu inta nala joogtay dhowr 20 yeelano inaan baan u arkaynay inaan baan u arkaynay walaasheed caawinayso la joogta marka inta ku yiri walaal maxaad inta yar Fariida ninka ka qaadan doonta asmaa aaminaye inta asmaa isdaafi ninka ka qaadan wallahi waa Fariid yare isaga waxa tireel baan ayo abooyad baa tiri inta iskuulku fasax u gaadhay ilaa ku noolatay daayna taas soo dirin marka saatina damama naan shudeyna waa iska aamusnay marka halkan dariiqa noo marayso inay yaro waxaan moodayno si fiican reerka u shaqeynayso nin khayr kulka dharka jirka meedhanayo biyaha guriga u dhigi jirtay suuliga u dhigi jirtay tiisumay maamulsan iyada maamul jirtayba ninkan inta rasmi ah ninkan noqotay ayaa maamul jirtay reerka saliida madaxa la marsaday haday tahay ninka iyada u keen jirtay qolaas oran jiray amanay in qoyan baa tahay anagu dawan kan xishoon jiro inanka seediga waa laga xishooday inantaada qureecda u geeyo ninka ku qaba oo inanka hoos dirina ka jooji waxan noo ma oran jiray waa aaminsan iyaga is ogaana waxan wuxuu yahay hadalka ma keen jirin marba halkaas waan xanuunsan jiray macaani Allah waxaan jirin aaminay Allah cod weyne waan ka naxay wala marka ayaa tuure kullaan jirin waan ka naxay balay codka weyn markaas oran jiray ninkii maxay safay leedahay cod weyn baa tahay ku oran jirtay horta codka dad dib u duubi jirtay qolkan yar codkeeda yar dareemayna nabasha codkeedu maxay tahay waxani way yar duubi jirtay codka marka inanta yar waxaan ma sid fiican u tababar fiican la siiyay malmood jiray wallahi waa inaan markii la iidaan maxkamada ku arkeen arkay wajigeedii wallahi ma tana asmaa ma ku ma tana asmaa matana asma iskama mayna qaadeen baamti iyo qasilka kol laba jeed may dhimi jirin hadda in yaro 5 mir may maqnaan jirin wajigeedani dhooban bas u marsan jirtay waxaan habluus mariyaan emta
qasilka da waxa habluus mariyaan bismirin jirto naasay roob bush isku samaysay guud yar oo dhimatiman dheer isku samaysay deena yar si fiican oo tababartay iska leedahay biyaha bisan baahan jirto walaalo oo ma sha Allah ina si fiican oo tababartay ma jirin waxaan jiraa Aaminaa inta yar fariid inta halka farsta kaabada Aaminaa man yeeray Aaminaa inta yar fariid waxa ka yaa wiilka Cabdiye ina ka qaad adoo yar qabuuba taayaan ku yiri inta fariid saaminka maamulaysa jirka meedhiga u dhigaysa biyo ku dhaqanayo ee saliidii u dhigaysa qadada siinaysa way ka qaadan inta istaafi najaadan unaye hoon cable TV hargeysa